waxa ay noo maraysay Soomaaliya oo xiriirka u jartay Britain xilligii Aadan Cadde waana qaybteeni saddexaad ee aan idiin soo dayn doono. Madaxweyne Aadan Cadde wuxuu xilka ka degay sanadkii 1967 kadib doorashadii lagaga adkaaday ee uu ku adkaaday Cabdirashiid Cali Sharmaake. Aadan Cadde ayaa xilka si nabad ah ku wareejiyay isagoona noqday madaxweynihii ugu horeeyay qaaradda Afrika ee xilka si nabad ah uga dega kuna wareejiya si nabad ah. Soomaaliya ayaa noqotay dal dimuqraadiyadda looga daydo. Aadan Cadde wuxuu ahaa madaxweyne daacad ah isagoo aan haba yaraatee wax musuqmaasuqa ama wax la xiriira lagu tuhmin xilligaasi. Markii uu dalku burburay, madaxweyne Aadan Cadde kama uusan cararin dalkiisa isagoo deganaa meeshii loo yaqaanay Mishaani oo u dhow Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Wuxuu aad uga murugoon jiray dhibaatada ku dhacday Soomaaliya. Mar uu la hadlayay idaacadda BBC-da Soomaaliya ayaa waxa uu yiri sida tan: nin walba oo Soomaaliya inuu meel dhigo wax asaga maslaxadiisa khaas inuu meel dhigo oo wax walba kormariyo Soomaaliya, yani heshiiskeeda iyo walaaltinimadeeda, inuu wax walba u huro heshiiska Soomaaliyeed iyo wadajirka Soomaaliyeed. Haddaba Allah u naxariistay ee madaxweyne Aadan Cadde ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya 8 bishii June sanadkii 2007, waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho 11 bishii June sanadkii 2007. waxaynu dhammaanba ku soo afmeeri doonaa halkaasi.